soo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaan idin wadaa ciwaan cusub. ciwaankaas waxaan uga hadlaynaa faa'iidooyinka mooska, faa'iidooyinka caafimaad ee moosku inuu leeyahay. mooska waxaa ka buuxa nafaqooyin aad u fara badan. nafaqada ku jirtahi waxaa lagu qiyaasaa ilaa iyo 112 kalori oo nafaqo ah. waxaa u badan carbohydrateska nooca loo yaqaano iyo biyaha. carbohydrateska waa cuntooyinka aan ka helno tamarta. sidoo kale mooska waxaa ku jira proteins, fibers, vitamin C iyo weliba nafaqooyin kale oo fara badan. faa'iidadiisa kalena waxay tahay moosku ma ku jiraan wax dufan ah. faa'iidada labaad ee moosku noo leeyahay waxay tahay moosku wuxuu hormariyaa heerka sonkorta dhiigga ku jirta. faa'iidada saddexaadna waxay tahay moosku wuxuu taageeraa caafimaadka dheefshiidka. faa'iidada shanaad waxay tahay moosku wuxuu ka caawiyaa qofka bini'aadamka ah miisaan dhimista. wuxuu leeyahay weight loss ama miisaan. faa'iidada lixaad mooska wuxuu taageeraa caafimaadka wadnaha. waxaa ku jira maadooyin u fiican wadnaha qofka, saas darteed wuxuu u fiican yahay caafimaadka wadnaha. faa'iidada toddobaad mooska waxaa ka buuxa maadooyin loo yaqaano antioxidants oo ka hortaga sunta ama maadooyinka sunta ee ku jira dhiigga qofka. mooska waxaa laga yaabaa inuu kaa caawiyo inaad dareento dhereg adiga oo baahan. haddii aad isticmaasho 1 xabo ama 2 xabo oo moos waxaa laga yaabaa muddo yar kadib inaad dareento inaad dheregsan tahay oodan cunto kale u baahnayn. moosku marka uusan bislaan waxaa laga yaabaa inuu wanaajiyo dareenka insulinta. insulintu waa maadada dhiigga ka xareysa sokorta, saas darteed ayada ayuu active-nimadeeda moosku ka qayb qaataa. moosku wuxuu aad ugu fiican yahay caafimaadka kelyaha qofka bini'aadamka. cunto kasta waa lagu darsan karaa oo si fudud ayaa loo isticmaali karaa. moosku wuxuu qofka ka caawiyaa sokorashada oo qofka wuxuu ka caawinayaa inuu soo kabto. waa mid kamid ah qudrada dalkeena aadka looga helo, mid kamid ah soo saarkeena. muhiimada uu leeyahayna aad ay u fara badan tahay. wuxuu sheegay inuu u fiican yahay wadnaha, uu u fiican yahay kelyaha, uu u fiican yahay miisaan dhimida, uu u fiican yahay dheefshiidka, uu u fiican yahay sokorta, uu u fiican yahay insulinta. sidaas darteed oo ay ka buuxaan nafaqooyin fara badan. sidaas darteed waxaan leeyahay mooska isticmaalkiisa hala badiyo, beerashadiisana aan badino.